Lionel Messi oo careysan ayaa sheegay in wiilkiisa 6 jirka ah ee Thiago uu weydiiyay sababta ay Argentina u doonayaan in ay isagu dilaan. Kabtanka Barcelona ayaa been abuur badan laga sameeyay kadib markii uu dhaawac uga haray kulankii labaad ee saaxiibtinimo oo xulkiisa yeelanayay isbuucii tagay. Messi ayaa aad u carooday balse lama uu yaabin wararka been abuurta ah ee laga sameeyay taa oo ku aadan in su'aal la geliyay daacadnimadiisa ku aadan xulka Argentina iyadoo ay dadka qaar aaminsan yihiin in uu isagu amro tababarayaasha xulka oo ay ku shaqeeyaan aragtidiisa. Wiilkayga Thiago wuxuu markasta daawadaa YouTube-ka waxaana uu arkay muuqaal wuu i weydiiyay maxay tahay sababta ay dad jooga Argentina u doonayaan in ay dilaan. 31 jirkan ayaa sida u sheegay raadiyaha October 94.7 FM. Messi oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri laakiin waxaan jeclahay inaan horey u sii socdo wali waxaan doonayaa inaan wax kula guuleysto xulka qaranka. Waxaan ciyaari doonaa dhammaan kulamada muhiimka ah. Waxaan horey u gaarnay finalka koobka adduunka 2014 sidaasna uma fududa in final la gaaro. Messi oo beenaynaya inuu isagu doorto macalinka loo dhiibayo xulka qaranka amaba uu ka shaqeeyo go'aamadiisa ayaa yiri ma doonayo inaan run ka dhigo dhammaan beenta la iga sheegayo. Aniga ma go'aansado tababarayaasha xulka qaranka. Waxaan maqlayaa waxyaabo xunxun wayna adag tahay in lagu raaxaysto waxyaabahaasi. Subscribe deh YouTube channel-kan Nimco Magan.